kusimaha taliyaha qaybta 27aad gaashaan la sareeyay Saaq Cusmaan Idris ana taliyaha ku xigeenka qaybta 27aad ayaa kormeeray furmaha ay kaga sugan yihiin degmada Buulo Burde ciidamada qaybta 27aad taliyaha ayaa ciidanka ka wareystay xaaladooda sida ay ugu diyaarsan yihiin la dagaalanka al-shabaab wuxuuna kula dardaarmay in ay laba jibaraan shaqada ay u hayaan bulshada dhanka kale taliyaha ayaa ciidamada faray inay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka al-shabaab wuxuuna u sheegay in degmada Buulo Burde ay go'doon tahay ku dhawaad 9 sano balse loo baahan yahay wixii hadda ka dambeeya la furo sidoo kale ciidanka qaybta 27aad iyo howlgallo ka wada inta u dhaxaysa degmooyinka Beledweyne Maxaas iyo Matabaan ee gobolka Hiiraan kuwaas oo lagu dagaalamay kooxda al-shabaab ugu dambeyn kusimaha taliyaha qaybta 27aad gaashaan la sareeyay Saaq Cusmaan Idris ana taliyaha ku xigeenka qaybta 27aad ayaa shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidanka Buulo Burde ano abaan duul guutaay ugu dambeysay halkan meeshaan lafteeda aan imid dhowr casho aan joogay sanadihii ma aqaan 2016 ma ahayd ma aqaan meelahaas ay ahayd waa magaaladeedii uguma cusbo haddana taytalka aan ku imid waa abaanduulo ama taliya xigeen qayb in waxaan kormeer ku ahaa ama aan ku socday in caafimaadkiina iyo badqabkiina aan marka hore ma aragta aan ogaado marka xigtana diyaar garow in aan sameeyno si loo dhaqaaqo ama cadawga la iskiga fogeeyo ama loo baabi'iyo baandho maxaa yeelay qaybta meelo badan dagaal ugu furan yihiin waa la socotiin hadda si soonaha Beledweyne u dhaxaysa Matabaan oo kale dhowr dagaal ka dhacay haddana waa lagu sii socdaa cudurkii galbeed laga sheegay gundahada ka dayaaliri Soomaalida saa ku maamaahdo wixii ka dhacay Beledweyne Buulo Burde iyo Jalalaqsi iyo Jowharna waa ka dhacayeen marka diyaar garowgaas in la sameeyo la diyaar garoobana maxaan ku raadayto waa ku talgalkeena ama socodkeena ahaa si khaas ahaan ugu sii tashan doonaa insha Allah anagoo intaan ka yar waad mahadsantihiin xamar askari iska socdo qorigiisa wato amar waxa ka baxay ah in la qabto qorigana laga qaado sigar xabsiga la dhigo askari iska socdo iska lugayna oo hadafkiisa uu meel u saaran yahay loogen waa la diiday xamar waa laga joojiyay halkan lafteeda qofka laga fasaxay ee diyaaradda raacay ee qoriga qaadanayo iyo tuutaha laga joojiyay qofkii la fasaxay horta la joojiyay sidiisaba wax badan jiro gurmada la iskiga baahanaya wax badan meesha maxaa ku raad nagu soo foodle ha la joojiyo hadii laga maarmo waayo ha la joojiyo hadii la tuuto iyo qori in askari